waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan idinku soo booqanno oo aan aragno runtii discipliinkiina quruxdiina iyo heybadiina inaan aragno oo weliba si kadis aan halkan ugu imaanno oo aan aragno waxaad ku nooshihiin iyo xaaladda aad ku jirtaan oo dhabta ah inaan ogaanno waxaan noo soo ifbaxay xaqiiqatan inuu moralkiina fiican yahay inaad weli u heelan tihiin aad diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan oo weliba hadda si fiican idinkugu carbiyey oo tababarkiina iyo macallimiintiina halkan aan uga jeedno runtii aan u aragno inaad hadda diyaar u tihiin inaad howlgallo ka qayb gashaan oo aad dalkiina u dhimataan dhiiggiina u daadisaan waxaan rabaa runtii inaan u hambalyeeyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa aan halkan nala joogin sacrifice-ka iyo halgankii dheeraa ay soo mareen siday uga xoreyn lahaayeen nabadiidka shabaabka khawaarijta ah ay magaalada Muqdisho uga xoreeyeen dad badan ay ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen runtii waxay ahayd tusaale idinka horreeyey oo loo baahan yahay in looga daydo oo ah geesinimada ciidankeena ay leeyihiin iyagoo weliba duruufo adag ku jira idinkana waxaan idin rajeynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaad noqotaan kuwii dalkan ka xoreyn lahaa qolooyinkan nabadiidka ah oo horarka ah oo shacabkeenna xalaalaystay inay dhiigooda qubaan oo si bilaa macnaha u laayaan hantideenna ay burburiyaan waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin markay noqoto iyo goobtay noqoto inaad diyaar u wadatiin kulligiin inaad ka hortagtaan howlgalladaasna ka qayb gashaan aanad u dhimataan dalkiina inaad difaacdaan oo aad ka difaacdaan qolooyinkan horarka ah oo diinteennii ceebeeyey sumcaddii Soomaaliyeedna dhulka dhigay waxaan idin farayaa waxaan idinku ammaanayaa waxaan idin leeyahay waa u istaagteen oo waa aqbasheen codsigaygii in mutadawiciin la helo oo ka soo qayb gala difaaca dalka waad aqbasheen waad ka soo jawaabteen tababarkiina waa idin dhammaaday insha Allah haddana waxaan rajaynaynaa kuwa idin la mid ah inay noo soo xaroodaan iyagoo idinku maaragtay maxaan ku rahdaa wax idinka baranaya oo aad u noqonaysaan idinka matalaad aad tusaale u noqonaysaan waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doonno hadduu Ilaahay yiraahdo si dhaqsiyo leh inaan uga adkaan doonno qolooyinkan horarka ah oo ummaddeena dhibaatada ku haya haddana waa ogyihiin inaad dhamaysateen tababarka waa ogyihiin inaad qaadateen tababarka noocyadii ugu dambeeyey insha Allah waa guulaysanaynaa waxaana dalkiina iyo dadkiina u soo hooyn doontaan guul waxaa dadkiina iyo dalkiina u soo hooyn doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dowlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idinla nahay wax alla wixii karaankeenna ah oo tabarteenna ah inaan idinla garab istaagno inaan idinka warqabno inaan idinla soconno xaaladda aad ku jirtaan